madaxweyne muuse biixi cabdi oo loo sameeyay muddo kordhin hor leh iyo mucaaradka oo hanjabaadyo waaweyn ka soo yeerayaan xilligan Somaliland oo xaalad kacsanaana tii ugu darnayd gali doonta iyo waxyaabaha xilligan la sii saadaalinayo oo ka darnaan doona banaanbaxyadii gilgilay dhammaan gobolada Somaliland oo ay mucaaradku iclaamiyeen ayaa warbixintan ku daawan doontaa daawade balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad channelkeena subscribe taabato like aad dhahdo oo aad la sii wadaagto saaxiibadaada kala duwan muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan sidoo kale daawade waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato oo gambaleelka furato si aad mar waliba u hesho xogtii ugu dambeysay ee dalka iyo dibadda oo aan halkan ku baahino daqiiqadba daqiiqada ka sii dambeysa golaha guurtida ee maamulka Somaliland ayaa maanta muddo kordhin hor leh waxay u sameeyeen madaxweynaha maamulkaasi mudane muuse biixi cabdi kadib kulan xasaasi ahaa oo maanta ay ku yeesheen xarunta ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa golaha ayaa 2 sano oo dheeriya waxay ugu dareen madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisa kadib codeyn gacantaag ahayd oo ka dhacday xarunta guurtida ee magaalada Hargeysa ee Somaliland sidoo kale golaha guurtida ee maamulka Somaliland ayaa iyaguna waxa ay ku darsadeen muddo xilood gaaraya ilaa 5 sano oo dheeriya waxaana golaha uu yahay kii ugu horeeyay mana jirto isbedel lagu sameeyay taniyo markii la dhisay waxaana markasta loo kordhiyaa muddada xilhaynta oo ay xilka sii hayn doonaan haddaba waxa golaha guurtida ay xilkii ay muddada loo qoondeeyay waxa ay ku sii darsadeen 5 sano iyagoo intaasi fadhin doona kulankan oo ahaa mid si weyn isha loogu hayay ayaa markii hore waxa loo diiday wariyaasha in goobtaasi ay soo tabiyaan xaaladda ka jirta iyo sidoo kale xogaha halkaasi ee ku gadaaman balse doodeer kadib ayaa loo ogolaaday saxafiyiinta waxaana lagu dhawaaqay in halkaasi muddo kordhin loogu sameeyay madaxweynaha maamulkaasi iyo sidoo kale golaha guurtida talaabadan oo ay qaadeen golaha guurtida ayaa ahayd mid la filayay waxaana ay ku soo aaday xilli toddobaadkii hore guddiga doorashada ee maamulka Somaliland uu ku dhawaaqay in uusan xilligeeda ku qaban karin doorashada oo u baahan yahay in loogu daro ilaa 9 bilood oo dheeriya lama ogo ilaa haatan sida ay noqon doonto falcelinta xisbiyada mucaaradka oo si weyn uga soo horjeeda muddo kororsiga kuwaasi oo horay dibadbaxyo xoogan uga dhigay Somaliland doorashada guud ee Somaliland ayaana loogu asteeyay ama loo qoondeeyay inay qabsoonto 13 bisha November oo ah bishan ku xigta ama bisha ugu soo foodale balse madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi ayaa xilligan wixii ka dambeeya waxa uu ku darsaday 2 sano taasi oo ka dhigaysa muddo xileedkiisa in uu yahay 7 sano haddaba maamulka Somaliland ayaa waxa si weyn loogu dhaleeceynayay bilihii ugu dambeeyay in ay doonayeen in ay muddada sii kororsadaan iyagoo mucaaradku si weyn ugu dhaleeceynayeen waxaana dhacay banaanbaxyo si weyn looga soo horjeeday maamulka Somaliland gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi oo gaaray heer in dad badani ay waxyeelo kala duwan ka soo gaarto iyagoo qaarkood nafta ku waayay halka dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen gobolada kala duwan ee maamulka Somaliland ayaana waxa ka dhacay banaanbaxyo xooganaa taasi oo sababtay in qadka internetka magaalooyinka qaar laga goosto waxaana si weyn looga soo horjeeday muddo xileedkan uu ku darsanayo madaxweynaha maamulka Somaliland muuse biixi cabdi iyaga oo dalbanayay in doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan loogu qabto maamulkaasi xisbiyada mucaaradka oo si weyn u dhaliilsan arintaasi waxaa horkacay gudoomiyaasha xisbiyadaasi oo kala ahaa Cirra iyo sidoo kale Faysal Cali Waraabe iyaga oo go'aan cad ka gaaray
in doorasho la qabto haddii kalena aysan degi doonin xaaladda maamulka Somaliland oo ah maamul looga bartay nabad inta badan kana mid ah goobaha geeska Afrika ee xilligan ugu nabadda badan iyaga oo doorasho xor iyo xalaal mar waliba ee lagu kala guuleysto. Muuse Biixi Cabdi ayaa doorasho qof iyo cod waxa uu ku helay kursiga madaxweynaha maamulka Somaliland waxaana xilligan mucaaradku ay leeyihiin waa in sidii adiga lagu boqoro kale oo doorasho qof iyo cod waa inaad qabataa oo xilligan aad banaysaa ay leeyihiin. daawade haddii aad nala soo gaartay intan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like taabato oo aad u sii share garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada. mar waliba waxaan u taaganahay inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay ee dalka iyo dibadda oo aan halkan ku baahino daqiiqada kasii dambeysa. waxaan ka codsanayaa muuqaalkan in aad la wadaagto oo aad u sii share garayso saaxiibadaada qaaliga ah ee kugu heliya sida WhatsApp-ka, Messenger-ka iyo sidoo kale aaladaha ay sida weyn Soomaalida ugu wada xiriirto si aan u helno saaxiibo u qiimo badan u qaaliya sida adiga oo kala daawade.